بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الله ميلبا او جوجتين يسول بود انو داوانيسان كسو دوادا قصوين يشيكوين حريرة oo aan rabno inaanu kula wadaagno boggeenan qiso iyo waano YouTube oo uga bogan doontiin dhacdooyin xariira. dhacdooyinkan aan si gaarka kugu soo xulnay waxaan rajaynaynaa inay wax badan nolosha dadkeena ka bedelaan. qof walba oo min bilow ilaa dhammaad dhageysatana ay si weyn u dareemi doonto saameynta nolosheeda ay ku yeelanayaan dhacdooyinkan waxaan si gaar ah ay ugu saleysnaan doonaan nolosha dadkeena. sidee bay qofka bini'aadamka ah nafkiisa u badbaadi karaa? sidee buu uga badbaadi karaa mushkiladaha iyo culeysyada haysa? guusha ma gacantiisa ay ku jirtaa mise cid kale ayay tahay inay u samayso? sidee buu qofku ku noqon karaa qof guuleysta? miyuu jiraa qof horay xaalkiisu u liitay dib ka guuleysta kadib markuu sabirkiisa kaashaday dadaalkana uu ku daray? dhammaan waxaad qisooyin kala duwan oo xiiso leh uga bogan doonteen boggeena. fadlan ku soo dhawaada, subscribe, like iyo share na siiya. daawadayaal waad mahadsantihiin. qisadeena koowaad ee maanta waxay noqonaysaa wiilkii saboolka ahaa ee hooyadii badbaadiyey. hamiin ou jira qabow fara badan, magaalada dusheeda mugdi aad u daranna ou jiray, roobna ou da-ayay, ayaa waxaa jira wiil yar oo dhuuban, dharkiisu ou duugoobay. wiilkaasi waxa uu fadhiistay geeska waddada oo aad u mashquul badneed. gacmaha yaryar ee wiilkaas waxaa ka muuqday dilaac iyo daalka weyn da-diisa. maalin kasta wuxuu kabaha dadka ku nadiifin jiray dhowr qadaadiic shilimaad ah oo hooyadii oo ugu soo iibiyo cunto yar oo ay hamiinkaas dabka ku shubtaan. dad badan way dhaafi jireen iyaga oo aan xitaa indhaha ku dhufan. qaarna way ku qosli jireen wiilkaa yar. eeg ereyada ay isticmaali jireen waxaa ka mid ahaa, eeg faqrigu siduu u galay wiilkan yar, mustaqbal ma lahan. ereyadaasi waxay ahaayeen fallaaro qalbigiisa ku dhacayay, laakiin mar walba wuu aamusi jiray sababtoo ah qalbigiisu waxaa ku noolaa hal riyo oo weyn oo ah inuu badbaadiyo hooyadii. maalin ay qorraxdu aad u kulleed ayuu nin taajir ah oo gaari qaali ah watay istaagay agtiisa. wuxuu eegay wiilka isagoo si quursi ah u dhoolla caddaynaya. adiga oo sidaan u eg maxaad nolosha ka qaban kartaa ayuu yidhi. wiilkii madaxa ayuu hoos u dhigay. ma uusan jawaabin, laakiin qalbigiisa gudihiisa waxaa ka dhacayay dab aan cidna arki karin. hamiinkaas markii uu guriga yimid waxa uu arkay hooyadii oo mugdiga jiifta, neefteeda ay daciif tahay. wax cunto ahna guriga aysan u oolin. hooyadii ayaa isku dayday inay dhoolla caddaydo si aysan wiilkeeda u murgin. hawelwelin ayay ku tiri, wiilkaygiyow waan fiicanahay. laakiin wiilkii wuu fahmay xaqiiqda. wuxuu eegay gacmihiisa yaryar, kadibna qalbiga ayuu la hadlay. wiilkii yaraa hooyadii ayuu ku yidhi intuu eegay, hooyo, maalin ayaan kaa saari doonaa dhibkaan ku haysta. waan kuu dhaaranayaa ilaahay idankiis inaan guul weyn ku gaarsiiyo. subaxii xigay wuxuu u shaqeeyey si ka adag sidii hore. wuxuu diiday inuu quusto, inkasta oo gaajo iyo qabow iyo yasidba ay hareerihiisa ahaayeen. dadka waxay arkayeen wiilka faqriga ah, laakiin ma arkayn dagaalka qalbigiisa ka socda. wiilkii yaraa wuxuu noqday nin ganacsade weyn ah. magaciisa waxaa laga yaqaanaa magaalada oo dhan. dadkii shalay ku qosli jiray maantay waxay saf ugu jiraan albaabkiisa. maalintii furitaanka shirkadiisa weyn, nin duq ah
oo dhar duugoobo wata ayaa uga soo galay iridda isaga oo shaqadoon ah. wiilkii markuu indhaha saaray qalbigiisu wuu istaagay ilbiriqsi yar. wuxuu ahaa isla ninkii taajirka ahaa ee maalin uun ku yidhi maxaad nolosha ka qabanaysaa adiga oo sidaan ah. ninkii duqa ahaa madaxa ayuu hoos u foorariyey isaga oo xishoonaya. wiilkii kursiga ayuu ka istaagay si deggan ayuuna ugu soo dhowaaday. kadibna wuxuu yidhi dadku waxay arkayaan dharka qofka laakiin alla wuxuu arkayaa qalbiga iyo sidoo kale dadaalkiisa. ninkii indhihiisa ilmo ayaa ka soo qubatay. wiilkaas yar ee la quursan jiray wuxuu uu noqday nin dadka quluubtooda taabta sababtoo ah dhibtii uu soo maray qalbigiisa ma aysan adkayn balse waa iftiimisay. ereyada waanada ah ee uu dhallinyarada kale u sheegi jiray waxaa ka mid ahaa marna ha quusan marka lagu yaso ama lagu xaqiro. dadku waxay arkayaan meesha aad maanta joogto laakiin alla wuxuu arkayaa meesha aad berri gaari doonto. sabirka dadaalka iyo ducada hooyo waa awood aan la jebin karin qof kastana sidaas ayuu ku dhihi jiray. waa hagaag weli waxaad la socotaan youtube-keenna qiso iyo waano. mowduuceenna maantay qaybtiisa labaad ayaa waxay noqonaysaa qiso ku saabsan ninkii hurdada ka toosay. qiso saameyn leh oo qalbiga taabanaysa. roob culus ayaa hamiin magaalada ka da'aya. sidoo kale wadooyinka waxaa qariyay mugdi qabow. dadka oo idilna qalbiyadooda waxaa galay inay tahay hamiin aad u adag. dadku waxay ku mashquulsanaayeen noloshooda. qof walbana wuxuu u cararayay meeshii uu ka heli karay diirimaad iyo sidoo kale nasasho. laakiin gees yar oo magaalada ka mid ah nin ayaa fadhiyey isaga oo madaxa hoos u laabay. magaciisu wuxuu ahaa saalax. saalax waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo riyooyin waaweyn lahaa. markii uu yaraa waxa uu rabay inuu noqdo qof ay dadka kale ay ku daysadaan. hooyadii mar walba waxay ku oran jirtay wiilkaygiiyow noloshaada wax weyn ayaad ka qaban doontaa. saaxiibo xun caajis iyo niyajab ayaa si tartiib ah qalbigiisa u cunay. wuxuu noqday nin aan shaqo lahayn aan rajo lahayn oo habeen kasta hurdada uga cararaya fikir iyo sidoo kale murugo. maalin walba wuxuu iska dhaadhicin jiray berrito ayaad bilaabaysaa nolol cusub laakiin berrito weligeed ma dhammaato. sannado ayay dhaaftay. hooyadii way gabowday. indhaheeda waxaa ka muuqday murugo aysan qarin karin. mar kasta oo ay wiilkeeda eegto qalbigeedu wuu jabayay. habeen ka mid ah habeenadaas mugdiga ah saalax isaga oo daalay ayuu guriga yimid. gurigii wuxuu ahaa mid aamusan. wuxuu u maqlay codka saacadda oo keliya. markii uu gudaha galay wuxuu arkay hooyadiis oo kursiga ku fadhida. waxay ahayd mid aad u tabar daran. hooyo ayuu ku yidhi isaga oo naxsan. hooyadii si tartiib ah ayay u dhool caddaysay waxayna ku tiri wiilkayow fadhiiso. saalax wuu fadhiistay. wuxuu arkay gacmaheeda oo gariiraya. hooyadii waxay ku tiri ma og tahay waxa iigu xanuun badan caawa. saalax oo indhaha taagaya ayaa kor u eegay hooyadii. maxaa waaye hooyo ayuu ku yidhi. waxay tiri inaan arko adigoo nool laakiin aan riyadaadii noolayn. qalbigiisa ereyadaas waxay ugu dhaceen sidii mindi oo kale.
ilbiriqsiyo ayuu aamusi waayey. hooyadii waxay sii raacisay, faqriga dhib ma ahan wiilkeeyow, guuldarradana dhib ma ahan, laakiin qofka isdhiiba isaga oo weli nool, taas ayaa ugu daran nolosha. saalax hamiinkaas ma seexan. wuxuu saqafka eegaba isaga oo xasuusanaya riyooyinkii uu aasaasay. wuxuu xasuustay maalintii uu yaraa ee uu ordi jiray isaga oo leh, hooyo, maalin ayaan kaa farxin doonaa. laakiin maanta waxa uu noqday nin ka cararay muraayadda si uusan wejigiisa u arkin. subaxii xigay markii uu ugu horreysay sannado badan kadib, saalax salaadii subax ayuu tukaday. wuxuu dareemay qalbigiisa oo ifaya. wuxuu go'aansaday inuu shaqo kasta uu qabto, xitaa haddii ay yar tahay. maalmihii ugu horreysay aad ayay u adkayd inuu shaqada qabsado. dad badan ayaa ku qoslayay. qaar waxay yidhaahdeen, adiga hadda ayaad soo toostay. laakiin markaa ma uusan joojin. maalin walba wuxuu qaadayay hal tallaabo oo yar, hal guul oo yar, hal isbeddel oo yar. sannado kadib, saalax waxa uu noqday nin shaqo fiican leh. 2 sano kadib waxa uu furay ganacsi yar. hooyadii markii ugu dambeysay ee ay aragtay isaga oo guulaystay, indhaheeda waxaa ka soo muuqday farxad aysan weligeed dareemin. waxay gacanta saartay madaxiisa waxayna ku tiri, hadda ayaan arkay wiilkii aan ku riyoon jiray. maalmo kadib hooyadii way geeriyootay. laakiin saalax markaa ma uusan ooyin sida qof wax walba lumiyey. wuxuu ooyey isaga oo mahadnaqaya, sababtoo ah hooyadii waxay ka tagtay isaga oo hurdadii nolosha ka soo toosay. sannado badan kadib, saalax waxa uu noqday nin dhallinyarada la hadla. mar walba waxa uu ka odhan jiray, nolosha qofka ma beddesho hal maalin oo mucjiso ah, waxa ay beddeshaa maalin uu go'aansado inuu mar dambe isdhiibin. dad badan ayaa ilmay jiray marka ay maqlaan sheekadiisa, sababtoo ah dadka qaar ayaa ogaaday in iyagu ay nool yihiin laakiin aysan weli noolayn riyooyinkoodii. waa hagaag, qaybaha dambe ee sheekadeenna ayaan soo gaarnay. waano qalbi taabada oo aan doonayno inaan ku soo xirno barnaamijkeenna maanta. waano qalbi taabada, waanooyinka qalbiga taabanaya ee aan sheekadeenna ku soo gabagabeynayna waxaa ka mida: 1. qofka ugu halista badan ma ahan kan dhacay, waa kan quustay. 2. riyadu ma dhimato ee adiga ayaa quusta. 3. waqtiga ugu wanaagsan ee aad noloshaada bedeli kartaa waa hadda. 4. dadka guulaysta ma ahan kuwo aan dhicin, waa kuwo dhacay. mar kasta oo ay dhacaan waxay ka qaadayeen dhiirigelin iyo inay wax isku sheegaan. 5. hooyo iyo aabbo mararka qaar waxay kaa arkaan qofka aad noqon karto, xitaa marka aad adigu is-ilowdo. erayada ugu dambeeyay aan sheekadeenna maanta qisada ku soo gabagabeynayna daawade ayaa waxay tahay: haddii aad hadda dareemayso daal ama jab hore kuu soo gaaray, ama niyad-jab aad ka qaaday howl aad ku taamaysay, xusuusnaaw, geedka ugu xooggan dunida marna kuma bixin cimilo sahlan. dhibaatada aad maanta ku jirto waxay noqon kartaa sheekada berrito dad badan badbaadisa. waa hagaag, daawade, maxaad ka baratay qisadan adiga? suurtagal ma tahay markaad eegto sida wiilkaa yar uu sameeyey
ama ay sameeyeen wiilashaas aan sheekada ku soo qaadanay inay qof walba ay awoodi karto inay nolosheeda maarayso. miyay weli kula tahay sheekadan markaad dhagaysato kadib in noloshaada oo la bedelo ay ku xiran tahay cid kale, mise maantay ayaad awoodaa inaad tilaabo qaado? maxaa kaaga baxa ra'yiga ah in qofku waxa ay ku taamayso ay maalinba maalin ku daymato oo ay tiraahdo berita ayaan qabanayaa? ha oran intaas, mar walba isku day go'aanka aad gaartay inaad maanta fuliso. adiga idaawanaya ayaan hubaa howlo badan oo qabanaysay aadna u baahneed inaad noloshaada ku hormariso inaad maalmo badan ku damaanatay oo aad tiri berita ayaan qabanayaa, saa dambe ayaan fulinayaa, welina ay kuu dhiman yihiin. fadlan inala wadaag sheekooyinka aad qorshaysay oo aad mar hore guul ka gaari kartay laakiin aadan samaynin iyo saamaynta naftaada ay ku yeesheen. maxaa kuu qorshaysan markaan sheekadan dhagaysta kadib? miyaad bedeli doontaa aragtidaada ahayd inaad noloshaada saamaynteeda, horumarkeeda iyo ka gudbidda xaaladeeda adag aad aaminto inay qof kale ku xiran tahay? miyaad noqon kartaa saalax oo kale? daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qisadeenna maantay ood kala socoteen youtube-keenna Qiso iyo Waano. intaan mar kale kulmayna waxaan kaga tegaynaa siyaas iyo nabadgelyo. fadlan subscribe, like iyo share na siiyo daawadayaal. waadna mahadsantahay hadda halkan la soo gaartay.